بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داوديال تلفزيونka caalamiga ee VOS waxa u suura gashay inaan maanta wareysi gaar ah ka qaadano afhayeenka isimada Sool Sanaag iyo Cayn Garad Absalaan garad waxa jirta in isimadii dhaqanka sida la sheegayo guud ahaan beelaha harti ay isugu yimaadeen magaalada Garowe shirna uu jiro shirkaasi muxuu ku saabsan yahay waa soo yimaadeen shalay way soo yimaadeen runtii beelaha harti isimadooda maartay Islaam Bashir iyo Islaan Ciise iyo Boqor Burhaan iyo Garaad Jaamac iyo isimadii oo harti oo dhan maartay intoodii badnayd shalay bay isu yimaadeen ilaa habeen hore shirar baa u socday runtii shirar markii hore lagu talagalay ma ahayn laakiin waa la iska halhalkan baa la iska helay dadna waxa la isla soo qaaday in dadkan dhibaatooyinka sidii looga saari lahaa dhibaatooyinka dadkan ku jira haday colaad tahay iyo haday siyaasado kale tahay arintaas la iska arkay shalay baa waqti fiican la wada qaatay sad meediyada ku arkaseen hawshaasina waa soo gabagabowday waa meel fiican baan la dhigay dad badan baa isweydiinaya isimada dhaqanka ee beelaha harti maadaama dagaal ka socday Laascaanood muddo 4 bilood ma markoodii hore ayay ku kala aragti duwanaayeen dagaalka ka socda Laascaanood iyo qaabka loo wajahayo ma dagaalka marna kuma kala aragti duwanayn laakiin dagaalka ka sokayba dagaalku waxa la oran karaa waa mideeyay baa la oran karaa laakiin waa laga yaabaa intaan dagaalku dhicin aragti kale la kala qabay laakiin markii dagaalku dhacay harti waa midoobay wuxuu u midoobay inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cirdigiisa ilaaliyo oo maartay aad buu ugu midoobay arintaas waana arin muuqata weeyaan dabcan dagaalku hadda wuxuu galay bishii afraad bishii Ramadaan wixii ka dambeeyay wax dagaalamay jirin waxa jira isima ka yimid dhanka koonfurta Soomaaliya oo u yimid nabadeyn iyo inay dhaxdhaxaadiyaan dagaalka u dhaxeeya bulshada ku dhaqan Sool Sanaag iyo Cayn iyo maamulka iyo milashiyadka soo duulay ee Somaliland maxaa rajaad ka qabtaan in isimadii dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ee ku soo dhaweyseen halkan iyo Laascaanoodba inay kala yimaadaan yaani wax lagu naayeeran karo oo nabadda ka shaqeyn kara ama nabadda wadeegaya ismadaasi waa yimaadeen waana soo dhaweynay Garowe ka soo degan waa lagu soo dhaweeyay Laascaanood baan geynay waxa la tusay dhibkii meesha ka dhacay iyo khasaarihii iyo cusbitaaladii iyo masaajidadii la dumiyay iyo tacaddigii meesha nimankaasi ka geysteen SNMtaasi ayaa la tusay way arkeen kabacdina waxa ay dhinaci kale aadaan xamar bay tageen adigu waa ku adkaatay aakhirkii hadda way tageen Hargeysa joogan wixii ay Hargeysa kala kulmaan iyo sida ay soo wada hadlaan baynu suganaa insha Allah kulay simadu waa isu dhow daloolaan oo waxa weeye waa la soo warwareysan karaa oo ma jira wali waxaan shaashaqo hadii aad laba hadasheenba ay oran karaan wixii meel fiican bay noo marayaan ama wanagu adkaadeen waa jiraan oo waxa weeye de kulay nimanku last ma la gabagabeyn waxay meesha ku tageen laakiin waxay noo sheegeen in isma soo dhaweeyeen in ay hawshii ku dhex jiraan inay noo soo bandhigi doonaan waa ka sugaynaa wixii ma aragtay tala ah ay soo gudbiyaan waa ka sugaynaa laakiin waxa saxaafadda loo sheego oo official ay noogu soo gudbiyeen oo yiraahdeen sida iyo sidaas aan soo garanay ama sida saas wax noo marayaan ma jirto rajo intee laga bad ka qabataan in maamulka Hargeysa hadda waxay la kulmeen wasimadii dhaqanka ee waqooyiga in maamulka Hargeysa ee Muuse Biixi hogaamiyo uu aqbalo nabad isla mar ahaantaasina ciidankiisa u dib u qaado ilaahay waxa waa tusi karaa de xaq darro ku socda ilaahay waxa waa tusi karaa laakiin rajadaan ka qabnaa waxa ninkan wax maqla ma aha nin waxa weeye in uu lagu garaaco ma aha nin wax maqlaya ma aha waa nin cid walba diiday adduunka oo dhan buu diiday Soomaaliya diiday dhaqankii buu diiday cid kastuu diiday marka waa dhici kartaa in ilaahay uu maartay uu xaq waafajiyo leeyahay dadkana leenaysid iyo dhulkana aan lahayn iyo tacadigan aad geysanaysid iyo waxa inay tusoo ka kaxayo waa dhici kartaa laakiin ma aaminsanin inuu ninkan ciyaar ku tagayo ku guuray hadaan la iska saarin garad hadda noqono magaalada Laascaanood iyo dagaalka ka socda duleedkeeda bari halka loo yaqaan Goojacade hadda in muddo dagaal ma dhicin dad badan ayaa isweydiinaya marka laga yimaado ama laga hadlayo maamulka Somaliland waxa jirta in iyaga lagu oran jiray inay mataqaana weerarka ay mar walba soo qaadaan ma inaga awal weerar jirnay mise iyaga weerar ku ahaa magaalada Laascaanood iyaga weerar ku ahaa Laascaanood weerar jiray iyaga dadka leen jiray iyaga xitaa marka la iska difaaco madaafiic ku garaaci jiray marka markasta dhinaca weerarkooda ayuu dhinacoodu ka socday weerarkooda dadkana difaac bay ahaayeen in iska difaacaan bay doonayeen kasakow ismada dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ka yimid horaan waxa jirtay in ismo ka yimid galbeedka iyo dhanka Hargeysa ay mar isku dayeen inay la kulmaan ismada dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn hay'adaha kaga cudur daarateen dad xabadi ku socoto oo dhafoorka uu qor ka saaran yahay inaysan cidna la hadli kareenin ismada wax xiriir wadamo sameeysan walaal ismadaasi de waxa si qalad ay u socdeen baan anu oran karaa sababtoo ah
waxay ahaayeen waan idin dhexdhexaadinaynaa adinkii Soomaaliland baan idin leynaya idinka baan idin dhexdhexaadinaynaa bay lahaayeen isla markaa muuse dadka ku leeynayo carruurta wiilashoodii bay ahaayeen oo ku soo dhaafayo baabuur saaran oo kolonyo ah oo dadka leynayo meedkoodii dhaacooda la soo dhaafinayo iyagoo kuwa u jeeda bay lahayn wadin dhexdhexaadinaynaa midda kale hadday dhexdhexaadiyaal yihiin hadeer maxay u leeyihiin kuwa koonfur ka yimi baan wakiilkan anaga dowladda wakiilka ahayna la hadla shalayna waxay ahaayeen dad dhexdhexaadiyayaal oo noo dhexeeya maantana dad Soomaaliland marka waan iska garanay Soomaaliyihiin dhexdhexaad aynan ahayn saasaan ku joojinay dhawaan waxa yimid magaalada Hargeysa nin Suldaan oo cadda gude lagu magacaabo si weyn lagu soo dhaweeyay Hargeysa arrimaha la saanood aad buu soo qaaday inkastoo markii hore si adag uga hadlay maamulka Hargeysana ku dhaleeceeyay dhibaatada la saanood ku jirta markii dambe wuxuu soo bandhigay eray ay kamid yihiin isimada dhulbahante ama dogaanada Sool Sanaag iyo Cayn hadiiba ay wax saluugsan yihiin xitaa kursiga Muuse joogo haday u socdaan doonayna fadhiistaan waa fadhiisan karnaa ereygaasi sidee u aragteen wallahi cadda guda iyo cid kasta oo ku hadasha hadal wanaagsan oo Muuse inuu qaldan yahay u sheegta waa soo dhaweynaynaa marka hore dad badan oo isaaq ka tirsan oo Muuse waa qaldan tahay leh oo meedida la taagan baa jira isagu dib kasta kala kulmeen runta u sheegaya laakiin tan kale uu leeyahay kursi baan oo ka isku kursiga ma nihin kursi ma ka kursiga iyana kursiga koorta kuma haysano kursiyada ha ku fariisteen ama dhaqan ha ugu fariisto ama ninka ha ugu fariisto anana kursiga aan ku fadhinaa marka kala kursi baan nahay isku kursi ma nihin marka kursigaasi waxaan u maleynayaa inuusan meesha ku jirin hadiiba aad dareentaan qof yani ka soo jeeda galbeedka ama aan raahday beesha dhexe oo tacaaduf u sameynaya dadka Sool Sanaag iyo Cayn tacaadufkaas iyo Muuse waa khaldan yahay kaliya miyay ku filan tahay inay mataqaanaa ku kala saaraan xaq iyo baadilka maya macnaha waxaan ka wadaa waxa weeye ninku markuu gardaradiisa waxa kama qaban karo laakiin gardaradiisu sheegay meediyada ninka mas'uulka ama siyaasiga ama dhaqanka ee meediyada u soo fariisto yiraahdo waad qardaran tahay waxaad ku dushay dalaadan lahayn iyo dadaadan lahayn ummad baad leeynaysaa kada ninka yiraahda sababana soo dhaweynayna laakiin macnaheedu ma aha in siyaasado kale ay ku hoos jiraan ma aha laakiin waa la soo dhaweynayaan waan ku mahadsan kaligeena ma aha dad badan baa waxay yiraahdeen gardarada Muuse u sheegay halkanku waxa la sheegaa xilligii hore inuu si xawliyo socday difaacuna oo aadka maalin walbana ma taqaana duulaanka ay soo qaadaan maleeshiyaadka Musabiixi lagu waabin jiray laguna jabin jiray dadka qaar baa hakadka ku yimid dagaalka u haysta inuu yahay isku shaandhayn iyo arrimo siyaasadeed oo lafteeda laga wado Sool Sanaag iyo Cayn iyo gudigii 3 in la kordhiyo arintaasi ma saameyn ku yeelatay inuu halkan ku akado maya kuma yeelan yani shaqooyinkuna way soconayeen halkankuna wuu soconayay laakiin waqtiyo ciid iyo Ramadaan la galay iyo markii dib ciid noqotay iyo dadka oo magaran ummado badan oo in ku dhex jiray oo maartay sida qolyahaas kale oo dadku ay maartay waan waday oo dadku ay lahaayeen bal iyadoo aan dhiigdaadan arma maartay ninkan aqli ku socodaya wadankii laga raraa iyo waxaas ayaa jiray marka wax kale oo difference ku dhex jiray ma jiro dabcan dadkan ku shaqada leh ciidamada oo hawshan wadayna iyaga looga dambeynayay saacadaha ay wax iska difaacayaan iyo saacadaha ay wax iska ceynayaan iyo saacadaha ay dib u dhigayaan marka iyaga in u deynana sababaha maartay in wax dib u dhacaan laakiin dad baa jira garad aragti xoogay negative ka dhiibanayay in xilliga kan mansab siyaasadeed iyo in la kordhiyo gudiga aysan ku wanaagsaneen halkan ay ku yareen keeni karto hakada maadaama hadii dadku u wajeestaan wax qaybsi in xoogay halkankii u yareen galay haba taas ma idin muuqataa maya sama ahayn saad ogtihiin go'aamadii anagu aanu soo saarnay oo hore waxa kamid ahaa in gudi 45 ah la magacaabo qodob dhan oo aan soo saarnay qodobadii dagaalkaba uu ku kacay intii dagaalkana la ku soo qaaday shir baanu ka soo baxnay shirkii go'aamada waxa ka soo baxay 12 qodob mi ahaayeen maan malaynayo qodob baa kamid ahaa in la gudi 45 in la sameeyo oo si ku meel gaar ah talada u sii wada taas baa marka waxa aanu u gudbinay adduunka taas baa dawladda federaalka ay ku soo dhaweysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ay soo dhaweeyeen marka qodob kamid ah qodobadii la soo dhaweeyay adduunku soo dhaweeyay ayay kamid ahay in 45 la sameeyo 45 kii waa raagay marka in 45 ku diyaar la sameeyo go'aamadaas kamid iyagu baa la fulinayay wax dhibana kuma keenayaan walina lama dhameystirin laakiin waa lagu jiraa in la dhameystiro maadaama soo hadal qaaday dawladda federaalka dadka ku dhaqan Sool Sanaag iyo Cayna halkankooda uu yahay reer Soomaali weyn la midoobaan sida dadka kacdoonkii ka socday Laascaanood dadku ay siteen calankii Soomaaliya iyo kan Khaatumo dad badan baa arka in dawladda federaalka aysan indhaf fiican oo raxmad leysan ku eegid deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn arintaasi ismadinu madrasantiin waa dareesanahay kuma ay eegin runtii maajibkii laga rabeena
mid bini'aadanimo oo dadkii qaxay iyo dhibaatada ku dhacdayna ma ay samaynin ku filan waxyaalaha ay dad diyaarada soo direen oo dad qaadeen oo xamar ku daaweeyeen way jirtaa lama qarin karo laakiin wax ku filan oo dadka dhibkii u soo gaaray Soomaalinimada iyo alankii iyo wadajirka xukuumadda hadda joogta ma ay samaynin adduunku markii cidi go'do waxay ahayd in sidii dawladda Itoobiya ay ula dagaashay Tigreeg uga dagaashay go'aan-goosadkeedii inay ula dagaalaan bay ahayd ninka la yiraahdo Musabixi iyo rijiinkiisa go'aan-goosadka wada iska day inay la dagaalaan dadkii la dagaalayay bayna gacan ku siinin marka arrinta waa lagu dhaliilaya waan xisaab taala kulli ummadda Soomaaliyeedna way arkaan waana kula xisaabtamayaan badan oo caadifada dagaalku ay ku xoog badan tahay nacayb badan oo ka soo gaaray cadawga soo dulay baa jira oo isweydiinaya maxaa la isu dul fadhiyaa gooja cadde oo cadawgu maalin walba duqeynta ugu geysanaya laascanood arrintaasi ma idin muuqataa sidoo aragtaan dagaalku caadifad kuma dhisna yani waxa weeye dad baa hogaaminaya mas'uuliyiin baa hogaaminaysa saraakiil buu leeyahay haddii qof caadifaysan talada laga qaato waxba xumaan kara marka caadifada si kale aan u isticmaalana in wax la iska celiyo oo dadka la kiciyo waa u isticmaalana laakiin inay go'aanka caadifad qaadato dagaalka ma sax ma shirka kan hadeer ay ku yeesheen maalinimadii shalay isimada dhaqanka ee beelaha harti dabcan isimada qaarkood way maqnaayeen laakiin waxaan filayaa in wakiilo joogeen miyaa jirtaa wax go'aan ah oo loo baahan yahay saxaafadda oo leeyahay waxaas laga hadlay mise waxa ay wax ka hadlaysaa arrintan laascanood iyo dhibaatooyinka jira laascanood kaliya ma dhibaatooyinka madaqadan hartiga oo maaragtay haysta baa laga wada hadlay in la isku duubnaado ummadda la mideeyo yaryara jira la oranayo isimadii harti waxay ka shirayaan Puntland kulli waxay gelaysaa sanadka baad doorasho gelaysaa laascanoodna waxa weeye dhibaato ka jirta dad ehelabaana degan in marka xagga siyaasadda lafteeda dib loo wajaho oo aan xilliga kan doorashooyin iyo hawlaha laga hadlinay la wajaho laascanood taasi ma jirtaa ma hadda wax siyaasadda iskala soo qaadin doorashada iyo nidaamkeeda iyo wax siyaasadda lama soo qaadin marka siyaasaduhu hadii la soo qaado way iska dhib badan yihiin wax laga yaabaa qayb wanaagga iyo wadajirka loo wado in dadka qaarba dhinac ka arkaan marka wax siyaasadda lama soo qaadin oo aan ka ahayn sidii laascanood looga xoreyn lahaa nimankan haysta laascanood waxa jirta ka sokow cadawga Soomaaliland soo duulay dad aynu ku tilmaamo horgolayaal oo cadawga la shaqeeyay jiray maalintii weerarka lagu qaaday xerada guulwadayaasha waxay xabadii ugu horeysay horgal lagu rido oo lagu dhiirado dagaalkii aad kula jirteen horgalka iyo dadka soo horkacaya cadawga go'aan ma ka gaadheen hadaa tiin ismadiina in qofkii ka soo horjeesta qadiyada tansool sanaag iyo cayn isla markaana cadawga soo raaco wax xeera mid ka yaala waa arinta waa lagu guuleystay waa doctor gacan baa loola tagay saraakiil baa lagu laayay looma nixin waxyaalaha dadka mideeyay bay ka mid tahay iska daa qof la soo saftay oo sameeyay dad la xidhiidhay baa inta la soo qaaday hadda halka lagu xidho la keenay oo la xidhiidhaan oo waxay la xidhiidhaan in cambaasho meelaha ordaya baa qof la hadlay la soo helay oo la soo qabto meelaha ku xidhan oo la xidhay intaan laba gaarin dhaqanka iyo waxan jamaahiirta iyo caadifiinta ba qaadanaya qofkii waxa horgal dambe awood uma laha isaga la fiiso baqaya kuwii ku jiray baa hadda in loo yeedho maartay in cambaasho hadda cafis talbanayo la halay soo cafiyaan laga ogolay marka laga hadlo arrimaha bulshada dadkii ku dhaqnaa magaalada laascanood oo tiraba lagu qiyaasi karo 250 banaanka ay magaalada uga baxeen waxa ugu dhawaa dadka u soo guuray tuulooyinka u dhow magaalada laascanood ee laascanood xukunto iyo Puntland iyo Garowe oo dadka ugu tirada badan la filayay inay joogaan maxaad ka warhaysaan dadkii ka baxay laascanood ee Itoobiya xariiqa qaxootiga looga yeeglayay wallahi dad badan baa qaxay oo qof walba meel aaday oo marka dad la qaxo meel badan baa la aaday Puntland bay u badan yihiin dadku inay soo aadaan magaalada Garowe tuulooyinka meel far badan baa lagu qaxay Itoobiyana dadku awal dawlad deegaanka oo ka tirsanaayeen marka Itoobiya waa xariiq u sameysay anigu ma aan tagin laakiin inay dad badan ku qaxeen oo matalan la ii sheegay marqaan oo kale 9,000 oo qoys baa hadda la dejinayaa baa la yiri oo maartay dadka deegaanka ah marka oo dhul loo banaynaya marka dadku waa qaxeen cid kasta oo gacan siisay dadka qaxayna waa mahadinaynaa waan amaanaynaa insha Allah xariiqa qaxootiga ee dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn magaalada Laascanood ka barakacay waxa jirta dhan boonboonin baa ka jirta bana waxa jirta in dhibaatooyin badan laga soo sheegay waxa jirta dacaayad la sameeynayo oo dadkii lagu soo xorogelinayo leeyahay waxa la idin dhoofinaya Yurub iyo Mareykan dad badan ay ku lagoobay halkaas tagayaan qaxooti cusub ay wajahayaan xitaa kuwa magaalooyinka ama tuulooyinkii ay joogeen uu san dagaalku saameyn ku yeelan marka arintaas aragtidaas ah in dadka laga qaado oo xariiq qaxooti lagu geliyo in Yurub loo qaadayo iyo Mareykan idinku ismaahan wax wacyigelin ma ka sameeysan wallahi dhinac bay positive ka tahay dhinacna negative ka tahay dhinac positive ka tahay qof qaxay oo gurigiisa ka qaxay cid intay meel dejisay wax tartay oo wax siisay waa positive iyo qaxootinimadiisa caawisay
dhinaca waa negative oo in dadka been loo sheego oo dadaan qaxinba xamar ka yimi koonfur iyo kuwa qaxiye laftooda jooga isaaqa waxa qaxiye laftooda soo tagay xaga ka soo maray xero qaxootiga soo galay oo yimi marka dhinacaana way ka qaldan tahay oo maartay in aan dadka been loo sheego dadkiina xiriya qaxooti kaadh baa laga sameystaa meelaha lagu aadaa marka wixii baa lagu dabaqay oo lagu sameeyay marka dhinaca sax kama aha dad baa jira yani aaminsan in dacaayadkan lagu xayeysiinayo in dadku xiriyaha qaxootiga ka xoroodan maamulka musabixi laftiisu ku leeyahay oo shakhsiyaad xiriyaha mas'uulka ah ay ka soo jeedaan beesha dhexe ama beesha musabixi marka arintaasi lafteeda dareenkeedu bisan jirin muuse wax kasta lugoyadayada oo ogaado meel ku soo ogaado waa sameynaya wax kasta oo is yiraahdo dadkaas iyo dalkaaba dhibaato iyo lugoye ku ah waa sameynaya marka waa laga yaabaa in la yiraahdo dhalinyarada waa halka timiyo marka lugoyadii xayeysiin u soo sameeyo wax dhici kara marbar baa jirta in saxaafadda maamulka musabixi oo ku jirta dagaal kale oo hadeer afka ah inay abuuraan tashwiish mudooyinka dambe waxay sheegayeen inuu jiro khilaaf iyo kala fikir duwanaan dhanka istimada maxaad dadku u sheegaysaa maya haba yaraatee waxa inankaasi waa heshiiyeen dantooda ka arkeen inay heshiiyaan waxay ogaadeen waxaan laascanood lagu haystay loo qabsaday ee dadka lagu dhibayaaba in ay tahay iyaga tafaraaruqooda ay soontooda waxay u waardiyeysanayaan marka muwaafaqada helaan waana waardiyeystaan waxay u waardiyeysanayaan muwaafaqadaas si aan laascanood loo waardiyeyn bay u waardiyeynayaan waayo waxay og yihiin wada jirkoodaas inay macna ku leeyihiin waxna ku difaaci karayaan haddii kala tafaraaruqaana arrinta ku xumaanayso marka lagama yaabo ilaa idinkii dhici mayso inay wax tafaraaruq yimaadaan marka laga hadlayo roolka ama doorka ismada dhaqanku ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada Soolsanaag yani hadda dhibaato ka taagan tahay marka qaar kood waxa jirta in saxafiyiin idin yimaadaan ismada qaar koodna wareysi laga qaado oo ay ka hadlaan maamul u dhisi doono ciduu ka koobnaan doono xitaa waxa jirta wareysi hore laga qaaday oo lagu weydiiyay in beelaha dhexe qaarkood ay maamulka laga dhisayo Soolsanaag yani qayb ka noqon karaan sida beelaha og iyo ceelafeen kaas taga xaasimaysan noqoneen ka hordhac laga sii hordhacay oo hadda ay tahay xilli halgan laakiin san ahayn xilli maamul sameeyo rajada laga qabo in halgankan ku bilowday kacdoon ay sameeyeen dhalinyarada iyo shacabkii laascanood oo kacdoonkii buluuga ahaa loo bixiyay xilligana maraya inay isu bedesho dagaal oo laascanood maanta madaafiic ku wajahan tahay inkastoo banaanka laga dhigay maamulkii maleeshiyaadkii Soomaaliland rajaynta leeg ayaa laga qabaa inuu guuleysto halgankii SSC hadeer 3 bilood ka badan buu socday waa socdaan waa dagaalku waa hadeerba 3 bilood ka badan buu socday dadka maamulayada waday hartibaa waday walaalaan u leenahay ehel baan u leenahay ilaa intuu doono socdo diyaar baan inuu socdo ugu dambeyntii maxaa baaq ah oo soo jeedinaysa bulshada ku dhageysanaysa ka gaaraad Cabdisalaan ahaan iyo adigoo waliba ku hadlaya afkii ismada deegaan Soolsanaag yacayn maadaama tahay afayeenkii ismada Soolsanaag yacayn Soomaali waxaan leenahay waxaan u dhimanaynaa waa Soomaalinimo waa midnimo waa caalanka buluuga inaga dhaxeeya nagu taageera oo waxa weeye af iyo adin iyo dhaqaalaba nagu taageera yani kala go'o la'aanta Soomaaliya aanu ilaalinayno اساسا Soomaali weyn leeyahay dadka deegaanadan u dhashayna waxaan leeyahay hartiga ama daaroodkana waxaan leeyahay muuse waad aragtaado qabaayil hadeer wuxuu ku wareegaalsanaya waxa leeyahay irir Soomaali iyo markuu wax kala waayay anagu hadda harti baanu maraynaa oo habar jecel la mid baanu maraynaa marka waxa weeye waxaan leenahay wixii deegaankan u dhashay meel kasta adduunka ka joogtaanba wadankii lama horeyn muuse wali laascanood qarkeedu degan yahay wuuna qoryeynaya sidii aad uga saari lahaydeen oo looga fogeyn lahaa looga kaxayn lahaa waana ku fikirtaan ku dhaqaalana ku bixisaan naf iyo maal ku bixisaan